بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتها بوندا وديالي دلهانتي بواحد كسر دواتان qaybtii 14aad ee sheekadeeni irbadii ay ka reebtay sheekadan waxa qoray qora Cabdullaahi Saalax Axmed qaybteena waxay ku bilaamaysaa sidan qaybteeni hor waxa inoogu joogtay dabciga kartida diiranaanta iyo aqoonta ballaadhaniba waxay ii horseedeen ka fikirkaaga iyo hamuun badan oo aan agtoogaaga u qabo waan ku jeclahay ayuu ku soo afmeeray waan naxay runtii aaraartiisa dheerina markasta indhahayga dhulka ku sii libdinaysay waan soo eegay waxaanan ku war helay qaado waqtigaaga wax degdeg ahi iminka ma jiraan ma garanayo wax aan ku sii sagootiyo galabta hadal waan idhi wuxuu ahaase ha i weydiin fiidkii ayaan sidii caadada ahayd waqti dheer bushaaro la qaatay arrinkii galabtaana u sheegay aad bay u soo dhaweysay talona iigu siisay inaan ku dhiirado aqbalaada wax jawaab ah maan siin ma garanayn waxa aan ku idhaahdo waxaan se hubay in dareenadan qalbigayga caburinayeen habeenno ayaa ka soo wareegay waqtiguna waa ordayay maalin kale ayaan isaragnay Mahdi bariido kadibna wuxuu yiri waqtiga dheeri wuu idilayaa anoo dhowlacdaynaya ayaan ku idhi hore u dhiman maysid ha warwarin is-afgarasho ayay noogu dhamaatay mid walbaana dhankiisa inaan looga soo dhicin ayaan isu dhaarsanay laba qof oo is ilaashanaya ayaan ahayn galbo iyo cawisho bilan ayaan wada qaadanay farxad in badan na seegtayna dib ayaan ka qalaynay ifka inaan isu tudhno ayaan isu ballansanay naftii quusta taagnayd maalin walba albaab farxadeed baa u furmayay waagii bariyaba waxaan wanaag ahayn ma filan jirin mahdigaygii ayaan habeenna badan cawayska wada shidanay dalka dibadiisa ayuu ku barbaarayo aqoon badanna ka taransaday xanuunka in uu ku dhashay ayuu ii sheegay caawinta dadka u dhibanna uu go'aansaday iimaanka ayaa qanjaha jooga qadarka eebana uu ku qancay muddo ayaan wada soconay go'aanna waxaan ku gaadhnay yagleelidda hooy aan kaga nasanno dacdarrada iyo naaraha dunidan qorshe iyo qabanqaabo ayaa la galay madax iyo maamul arrinkii ayaan ogeysiinay asxaabtuna diyaarinta iyo isku dabaridka arrinka naadirka ayay u heelanaayeen waqti badan oo aan galay kadib habeenkaygii baan soo gaadhnay aroos aan hore loo aragna xaruntaydii ayuu ka dhacay farxadaydii markaa wuxuun baan ku qiyaasi karaa albaabada jannada ee la sheego in midna loo furay janno adduun haddii ay jirtana inaan keligay ku jiro ayaan aaminsanaa bilo aan farxad ku naaloonayay ayaa tagay waxaan ka argoosanayaa ayaamihii ilmada nashaad badanna waan dareemayay waxaa noo dheeraa labadayadaba howlaha adag ee aan wadnay anigu ururadii ayaan isku dabaridayay safarro koobanna u baxayay howlo badan ayaan isbuuc kasta qaban jiray dad aan tiro yaraynna waan la kulmi jiray urur ahaan Mahdi isagu hawshii xarunta gudaheeda ayuu gacanta ku hayay sidoo kale dhigistii ayuu sii watay mar ayuu se go'aansaday inuu ku noqdo Sweden oo kolkii horeba deganaa halka ayuu sidii uu horeba samayn jiray hawlihii ka sii waday xarumihii ururadana ku hayay anigu safarrada aan u baxo badi Afrika gudaheeda ayay ahaayeen xarumaha u waaweyn ee dhowrkii isbuucba in mar la booqda ay lagama maarmaan ahayd waxa ka mid ahaa xafiiska u weyn ee Nigeria waxa ku soo xigay kuwa Koonfur Afrika iyo Kenya hawlaha adag inta aan ku jiray daal iyo tacab badan ayaan dareemay waanse ku faraxsanaa inaan u adeegayo dad aad u tabar daran tusaale inaan u noqdo kumanaan caruur ah oo waxba galaabsan iyo dad anoo kale ah oo la nool xanuunka ayaan diyaar u ahaa intaas kadib maxaa dhacay la socdaa wade qaybteena xigta qaybteena maanta sheekadan waxaa qoray qoraa Cabdullaahi Saalax Axmed annagoo bahda dagaalina waan kula wadaagnay